السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan channelka iyo page-ka Abdul Onestigay. waxaan rabaa inaan barnaamijkan hortiina ka muuqdo ee loo yaqaano netbeans 80 ama 8.0 midkan loo yaqaan aan rabaa inaan ku diyaariyo code yar oo soo bandhigaya ku dhahaya welcome to the Limra office ama meesha rabta ama my name is Hebel qaabkeen waxa la hayaa codekaas qaabkee uu qoraya waxaad kacsanaysaa netbeans marka waxaan ka hadlaynaa Java programming netbeans ayaa double click ku dhahaysaa waana sugaysaa cabaar netbeans inta ka soo kacayo waqti ayuu qaadanayaa marka rabto inaad Java programming diyaariso netbeans ayaa wuxuu ka saacidayaa inaad qaab adiga defka oo kale inaad ugu diyaarsato Java laakiin waa inay shuruud ay tahay inay kugu jiraan laba software JDK inuu ku duubayaan computerka iyo JRE labadaas waa inuu installing ku yahay computerka kadib aan netbeans gadaal aad ugu shubto menus wuxuu leeyahay tabs ama menus ayuu leeyahay netbeans-ka sida meeshan kaaga muuqato Val, edit, view, navigate, source, refactor, run, debug, profile, theme, tools, window, help. Oleh. waxaan aniga hadda tagayaa qaybtan ayaa tagayaa ee ku qoran tahay file waxaan dhihi doonaa project-ga intaadan sameyn kor waa inaad folder samaysataa waxaad ii samaysaa file ii sameey project hore uga cararin file ii sameey failku wuxuu ku soo bandhigayaa qaabkan wax yar ayaa sugaysaa daladan ayuu ku soo bandhigayaa new file ka ku qoran tahay wax yar ayaa sugaysaa iyo project name waxaa dhahay midkayga ii daay class name ka ii sameey Java ama Java application 1 ii daaya daysa waxaad iiga sameysaa class oo ah hello class loo yaqaan iiga sameey meeshan waa muhiim inaad wax ku qorto waxa loo yaqaanaa package kan hada ka tagto netbeans-ka kuma shaqeyn doono waa inaad package kan ku qortaa hello waa inaad ku qortaa kadib markaasaan aad hello ku soo celiso ama hello waana you ku qoray ama me waxa doonto ku qor laakiin muhiimadda xataa waa inaad wax ku qorto hadaa ka tagtid ka kaco package kuma laha ranka ayaa ku dib qabaa haysa marka waxaan dhihi doonaa finish ayaan dhahayaa waxaad dumalaysaa loading dhalacad ayuu ku sii doonaa okay dhalacad ayuu ku siinaya wax ku diyaarsan yahay waxaan ku dhahay package-ka waa muhiim inaad samaysato okay waa kay application-ka waa ku keenay qaybtana dooraysaa iska dooro kan iga titir oye qaybtaas ugu sareyso asaa default-iga qaabka ku keenay waay iska titir kuwaasne okay waxaan rabaa inaan diyaariyo program oo ku dhahayo welcome to Limra office welcome to the Java programming waxaan sameeyaa meeshana waxaa la rabaa inaad code qorto waxaad dhihi doontaa qaybtan waxaa ku qori doontaa waxa la dhaho public static void main kadib calaamadda function-ka ayaa furaysaa open bracket close bracket dhaxdooda waxaa ku qoraysaa string adoo esta weyneeyayo kadib dhaay laba dhaxdaadin square bracket ku sameeyaysaa waxaad qoraysaa args ayaa qoraysaa waad diyaarsatay maxaa laga rabaa netbeans-ka qaabkan ku yahay okay waxaad ka diraysaa curly bracket-ka zigadir mid fur curly bracket fur enter soo dhahay waxaa ku qoraynaa midkan system
ماشي أنا كده print F iyo C out meeshaan ka dhigayna C language C plus plus ka C out aan ka dhigayna print aan ka dhigayna kana waxaan dhihi doonaa system dot out dot print ln open bracket close bracket laba dhexdiisa shift quotation la qabo kadib waxaa ku qori doontaa welcome to the Java programming. So the Java programming kadib waxaa soo xiri doontaa semicolon ayaa kusoo xiri doontaa statementiga kadib cursiveka laba mar mida inta kasoo furtay oo galaaska xaggiisa iyo midka systemka meeshaan affectionki meeshii kaaga dhici laayay header failka meesha qaybtiisa kasoo furtay kasoo xira sina waxaa dhihi doontaa soo xir cursive bracketka waa soo xire okay waxaa ii dhihi doontaa save all programkii waxaad ii dhahdaa save all waxaa rabaa inaan liisoo daawaco welcome to the Java programming okay markay saan tahay waxaa laga yaabaa program kale inaa hore u diyaarisay laga yaabaa waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay debug waxaan dhihi doonaa debug fail hooga ayaad sugaysaa debug failka markaa ku dalabto kadib haddana waxaad dhihi doonaa debug project si aad doobta programkaaga run markaa dhahdo ciyobku ku soo kaco oo meeshii ku sameynaysay executionka meeshii ku sameynaysay kana waa meeshii wax lagaaga soo bandhigayo markii excuse lagu sameeyo waxaad u baahan tahay wixii in lagu soo bandhigo oo kan oo ku yaqaana difka dhalamadoo halka kasoo bandhigayo kan laakiin wuxuu yaqaanaa inuu hoos qaybtan kale oo consult meel wax la dhaho inuu kaaga soo bandhigo hoostan oo kaaga soo bandhigi doonaa qaybtan hoose iyo kaaga soo bandhigi doonaa console wax la dhaho ku soo bandhigi doonaa hadoo error jiro error ay ku sheegi doonaa error hadduu jirinna shib ayuu kaa dhigi doonaa running oo barnaamijkii debuggingkiina ayaa socdo mujeeda maxaa meeshaan kusoo qoray welcome to the Java programming laakiin hadda cod kale aan samey galaas kale aan samaystay galaas waa weelkii xogta ku hayaya galaaska ayaa samaysatay galaaskii aadina xogta ku diyaarisay marka run image markaa yeelay waa inaad debug fail soo saara ama debug aadaadi kadibna project aadaadi main project markaa aadaadi caadi u qaadaha laakiin debug fail waa inaad dhahdaa kadib run caadi u dhaha kartaa kadib waxaad dhaha kartaa run waxaan jeclaa inaad si fiican ugu faa'iideen haddii aad ku cusub tahay janaalka Abdullah Honest Guy iyo pageka Abdullah Honest Guy waxaad saartiin subscribe pageka dhanka aad ku leenahay Facebooka dhanka YouTube-ka subscribe noo saara sidaas iyo amaan Allah isma dhafno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.